السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. habeen wacan wanaagsan dhammaantiin mamlaka dunida laga daawataan halkan waa hadal TV oo toddobaadkii maalin ma kamid ah laga daawataan daafaca caalamka waxaan mar labaad iyo mar saddexaad baad iga codsanayna inaan soo raacdaan oo maaragtay wixii wariye wacala haysa xag hoosan lagu laabtaan ama aad nagala socotaan ba Facebook TikTok iyo YouTube ka iyo baraha bulshada dhammaantood baa ku jira meel kasta aad jeceshihiin warkiina iyo wacashina way helayna mar labaad iyo mar saddexaad ba ku soo dhawaada warkii caalamka iyo dalka Soomaaliya waxaan digahaynaba dowladda Soomaaliland ayaa sidiisii ciidamada ay ka heshay dowladda gobolka Soomaaliya ee Puntland madaxweynaha ku-xigeenka Jubaland Soomaaliya mudane Axmed Aw Cali ayaa soo xiray guddi nabadda eelafin maanta guddiga nabadda Soomaaliland ay magacooday ayaa ku sugan magaalada Jigjiga kuwaas oo horkacayo mudane Cabdiqaadir Jirde Puntland madaxweynaha diray ayaa ku baaqay in wadada la soo u dhaxaysa magaalada Soomaaliland iyo Puntland halkaas ay wali alankaan nabad laga gaarin ay dhexda ku jirto Khaatimo hore ayay waxay inay sideesay Khaatimo maxaabiis ay gacanta ku hayeen kuwaas gacanta u geeyeen dowladda Soomaaliya dhinaca kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa ku baaqay in si la isku yimaado halkaas wali alanka cid qabiishin si la sheegay ay ka qaybgalayso Khaatimo golaha watashiga Soomaaliya ayaa tan iyo xilligaas la isku malaabsay si loo wada qaban lahaa ciidamada ayaa la sheegay Turkigu uu leeyahay inay ka degeen Soomaaliya kuwaas la sheegay inay xiribtiri doonaan al-shabaab ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa xilka bedelay magacaabis u kala magacaabay wasiirka arrimaha dibadda ka dhigay wasiirka gaashaandhigga kuwa kale kalena ka dhigay wasiirada arrimaha dibadda iyo kuwa kale oo qaaday dalka Soomaaliya badiisa ayaa roob ka daayeen wiigal halkeed ka daayeen caawa magaalada Hargeysa iyo meelo kale halkan waa hadal TV toddobaadka maalmaha kamid ah naga daawataan ku soo dhawaada warkii oo fiisan wadiidada anigu Xuseen Sheekh Daahira madaxweynaha Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirre ayaa sii daayay 12 maxbuus oo ku sugnaa magaalada Hargeysa halkaas ay ahaayeen ciidamadii lagu qabtay magaalada Laascaanood xilligii dagaalada ay ku dhexmarayeen Khaatimo iyo MSC iyo Soomaaliland kuwaas oo ku jiray sarkaal magac weyn ku lahaa oo la yiraahdo Aarsade dadka reer Puntland ayaa aad iyo aad u soo dhaweeyay halkaas ka digeen gagada dawladda oo la socday boqorka geeska Afrika boqor Bulmadow dhinaca kale guddida ay soo dirteen ayaguna ay keeneen dad iyaguna maxaabiista Soomaaliland ka hayeen islaafka maxaabiista ayaa bilaabay hadda kuwaas oo la rabay in nabadeyn loo soo gogol xaalo hore ay Khaatimo sideysay maxaabiista Soomaaliland ka haysay walaal aanay Soomaaliland kala xiriirin balse ay iyagu ku wareejiyeen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya halka Soomaaliland sheegtay inaanay kuwaas iyaga khusaynin balse ay yihiin dad iyagu iskood maxbuuska ma cid kale gacanta ugu galiyeen nin maxbuus ah ay cid kale hostage u haystay ku tilmaameen una jireen inaanay jirin wax gorgortan inay kala galayaan madaxweyne Cabdiraxmaan Cirre ayaa u muuqda mid isagoo dalkiisa soo dhaweynaya halkii bulshada beeleedu u mahadceliyeen walaal ay jirto xisbiyada qaar ay ku tilmaameen in maxaabiista marka la isla in ku iyaga ka xidhnaana la helo guddiga nabadda ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ku sugan magaalada Jigjiga kuwaas oo hore u magacaabay madaxweyne Cabdiraxmaan Cirre halkaas la kulmeen guddidii hore u dhexwooday Khaatimo iyo Soomaaliland oo hogaaminaya garaad wiilwal guddida ayaa la yeeshay dadka bulshada oo magaalada Jigjiga kuwaas ay kamid yihiin madaxda qaranka odayaasha cuqaasha salaadiinta iyo guddiyada nabadoonnada ee ka jira halkaas oo la rabo in lagu wada hadal siiyo Soomaaliland iyo Khaatimo dagaalkii 2022 dabaaqadii si bilaabmay 23kii loo ku kala calaf qaadeen Khaatimo iyo Soomaaliland ayaa wali alanka dadkii lagu kala qabsaday aan la isla wali alankana wadooyinka ay xaleeyeen dhinaca kasta ka eegtaba waa bulsho isku gacmahooda iyo dhagarahooda la rabo in lagu kala badbaadiyo si ay sheegeen guddiga nabaddu ay sheegeen dagaalku ahaa dagaal suuqyo ka dhaxay gudaha Soomaaliland dhinaca kale Khaatimo ku ay sideysay ayay ku tilmaantay Soomaaliland in xamse aan ahayn loo dhiibo balse ay iyagu ka wada hadlaan guddida nabadda ayaa laga rajeynayaa inay isu soo dhaweeyaan bulshada kala dhowday ee ku kala dhaqan gobolka Sool iyo Soomaaliland inteeda kale maanta ayaa lagu soo gabagabeeyay dagaal ka soconayay ama bulshada ku dagaalamayay magaalada Elafin muddo 9 sano halkaas oo fuud aad badan ay ka qayb gashay maanta guddiyada nabadda iyo dadka xariixlaha labada beelood halka ku dagaalamayay iyagu abtiyo saddex iyo sidii habradaga iyo habriyarka soo walaalahana ah guddidaas
ayaa waxaa guddoominayay madaxweyne ku-xigeenka oo muddo ku sugnaa gobolada bariga halkaasuu hore ugu soo qarameeyey ciidama iyagoo ay ahaayeen madaniga. madaxweynaha ku-xigeenka ayaa ah isagoo haatan mid gacmaha talada dadka gacanta ku celinaya, jecla nabaddu inay kasoo lano, sheegayna inaanu jiraynin nin dabo nabadda loo daba istaagiyo. maanta ayaa lagu saxeeyay taasi oo qolo kastaaba waxeedii loo yeeriyey, jirina cid dambe oo fulin laga sugaysa ciidamada qarankuna ay amar ku qabaan qofkii dambe ee lagu arko hub, gaar ahaanba gobolada ay dhibaatooyinkaas ka dhigeen sool iyo sanaag iyo dhinaca kale buuhoodlaba wixii lagu arko cid hub sidata inay ciidamadu fasax yihiin ay ka qaadaan geeyaana maxkamadaha qaranka. madaxweyne ku-xigeenka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa bulshada Soomaaliland ku sheegtay inuu mudan yahay in la guddoonsiyo shahaado sharaf, taasoo lagu wacday shahaadada nabadda. maxaa yeelay intii uu joogay wuxuu qarameeyey ciidamadii madaniga kuwaasoo duruufo kala duwan ku abuurmay, qabiilo kala duwanna lahaa, jiiday kalooyin ay aad iyo aad u ballaanayd, taasoo haatan gebi ahaantoodba uu soo dhamaystiray toddobaadkii dhaafay. haatanna nabaddii ceelafeyn iyadana lagu soo dhamaystiray maanta. waxaase bulshadu ay faatixada u maraysaa inaanay mar dambe xadhigooda furmin, ay noqdaan kuwa nabadda qaata, ilaaliyana anshaxa iyo asluubta iyo dadnimada iyo diinta iyo dhaqankaba. guddiga nabadeynta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland magacaabay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ayaa ku sugan magaalada Jigjiga, kuwaas oo la rabo inay ka midho dhaliyaan hadafka nabadeynta gobolka Sool iyo Somaliland wixii dhex mari lahaa, si jidka loo furi lahaa iyo sidii wada noolaanshaha bulshada loo soo celin lahaa. mudanaha hogaaminaya ayaa ah mid cabqari oo aad iyo aad uga soo shaqeeyay nabadeynta, kala soo mid noqday xilalkii qarankan loo soo halgamay oo ah Cabdiqaadir Jite. guddidaas ayaa iyaguna guurta dhinacooda ay taageereen, halkaasay sheegeen inay kusoo warcelin doonaan xilliga ay soo gabagabaabaan, si gaarana ay wada shaqeyn doonaan haddii ilaahay ka dhigo. madaxweynaha Puntland ayaa sheegay inuu isagu aad iyo aad u danaynayo kuna amray bulshadiisa in wadooyinka iyo nabadeynta ka qayb qaataan, halkuu sheegay in Somaliland uu kala shaqeynayo si wadooyinka la isugu furi lahaa. dad badan ayaa diidmataa ku sameeyey iyadoo aan weli alaanka aanay nabad ka dhicin gobolka Sool, sheegana taas inaan ahayn in mid lagu degdegi karo iyadoo aan nabad, balse maxaabiista iyo haatan wada socota ayaa fafaaraheedu noqonaya mid ay hirgali karto. madaxweynaha Deni ayaa ku sintan inuu soo celibtiray cudurrada Daacish, kana adkaaday wixii argixisada loogu sheegi jiray, sameeyana dimuqraadiyad, sheegana inuu ku dayanayo raggii madaxda geeska Afrika oo ka mid ahaa Allah u naxariistay Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal. mudane ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya federaalka mudane Xamse Barre ayaa ka qaaday xilkii wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya, halkaasuu ka dhigay wasiirka gaashaandhigga oo ay sheegeen. wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa dadka qaar ka dhibsanayeen hadallada deeqaafka, halka qaar kalena ku salaweeyeen, walow dadka qaar ay sheegayaan inuu waxqabadkiisa aad uga adkaaday dadyowgii dibadaha ku noolaa ee falanqeeya siyaasadda Soomaaliya, kuwaasoo qaarna xarkaha jiray. Ethiopia ayay ahayd dalalkii ay isku dhaceen xilligii intii uu xilka hayay, kaasoo haatan la sheegay in heshiis laga gaadhay. madaxweynaha Xasan Sheekh ayaa guddida golaha in loo dheeyahay ee qaranka isugu yeeraya baaq uu u diray dhammaantoodba inay isu yimaadaan dowlad goboleedyada iyo guddiyada qaranka, sidaasoo loo helo in doorashada lagala wada tashado. shirka qaran ayaanay muddo dhowr sana ka soo qaybgaleen Puntland, halkay iminkana aanay la sheegayn inaanay ka soo qaybgelin Jubbaland. lama hayo cid dhexdooda ka shaqeynaysa ama u kala dab qaadaysa oo bulshada Soomaaliyeed ka mid ah, profesoriinta, cuqaasha, salaadiinta iyo macallimiinta, shuyuukhda iyo dadka hantiilayaasha ayaanay jirin cid u kala dab qaadaysa si loo furdaamiyo caqabadaha hortaagan nabadda iyo wada shaqeynta dowladda federaalka iyo dowladda goboleedyada. dhinaca kastoo ka eegto aanu ka fiirinay ama dad aan la xiriirnay bulshada ayaa sheegay inaanay warkaas haatan aanu ololin, balse loo baahan yahay in xildhibaanadii laga soo hortay deegaanada ay matalayaan ay ku laabtaan si loo helo oo daras ay dowladda federaalka ku wada shaqeeyaan dowlad goboleedyadu. Xasan Sheekh ayaan weli alaanka isagu aan haynin sida dowlad goboleedka Puntland iyo Jubbaland, halkaasoo la filayo bal si in waawaan laga dhexleliyo, walow aanay muuqanin siay sheegeen bulshadu cid haatan ka dhaqaaqaysa. dalka Turkiga ayaa la sheegayaa inuu geeyey dalka Soomaaliya ciidamo, kuwaas oo uu ku caawinayo inay dagaalada al-shabaab oo ay kula dagaalamaan dowladda federaalka Soomaaliya halka hore ugu lahaa saldhig Soomaaliya.
ciidamada Turkiga ayaa inta badan taageerada dowladda federaalka halkaas ay ka taageeraan xagga cirka iyo duqeymaha loo geysanayo goobaha Falastiinada ay yihiin al-shabaab weli dowladda federaalka kama hadal ciidamadaas halkay joogaan iyo halkay ku sugan yihiin balse warar baahinta ayaa sidaas soo qorsay halka Turkiga uu sheegay inuu shidaalka Soomaaliya uu marka ciidamadaas ay dhameystiraan shidaalka Soomaaliya laga soo saari doono mashaariic badanna uu ka filan doono dhinacyada falanqeeya Soomaaliya ayaa sheegaya maadaama ay wada shaqeyn ka dhaxaynayaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ciidamada Turkiga keenaya al-shabaab ay isku dhacaan taas waxay caqabad ku noqonaysaa kala inaanay keenayn nabad bulshada Soomaaliya dhextaala balse loo baahan yahay bulshada Soomaaliya iyaguna wada shaqeeyaan Turkiga ayaa muddo dheer barbar taagnaa dalka Soomaaliya uu ka barbar tan iyo xilligii uu Sheekh Shariif ahaa muddo laga taagay imika 15 sano ka hor ayuu madaxweynaha Erdogan garab istaagay Soomaaliya walow aanay ahayn saldhigga military mooyaane wax kale oo taaban karo Soomaaliya si gaar ahaan dhaqtar la sheegay Digfer oo gacanta ku hayo balse wuxuu aad iyo aad u taageeraa dhibaatada markay soo gaareen ciidamada qaranka ee federaalka Soomaaliya halkani waa hadal TV toddobaadkii maalmaha ka mid ah anaga daawataan wixii wariyay wacala insha Allah bil karim aanu soo helana dib ayaanu digala socodsiinaa nabad qab iyo nolol kunti wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh